Any country you don't like? I don't like Somalia. 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 aniga marka aan ku leeyahay Tanzania Soomaalidu waa ay macnaha dad Soomaalida codad u haaya waay ma ahan inaan qalad isaga ataagay laakiin waxaan dhiga ku soo arkaa warnina dhul loo dhaayo mal ciyaalka qolalka ku xirxiran ee aan soconin ee qalbigu madow yahay ee qashin aruuris kasta u maleeya qof caadi ah ayaan anigu aga digayaa in sawir qaldan ee caasimadana ka gudbiyaan laakiin ma ahan in aan ayagu waxay wataan iyo waxooda aan ka hor istaagay Okay. أنا موجود قف عقلي له سليم أو هو شيء كره لكن تكون حاجة تشوف وحبك كمان على سكره. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غير تقمع قاهي جمدنا ملك سوى توكتان سيكستو مقالك مقالك يدين سو قاريبا. هل كده قد داون يسوي channel كشاعر شيكين ولكن شاعر شيكين كسر وهذا برنامج كذا أنت بالشود وأنا ذيكوها هيو. بوم بوم بوم. واتاسع حبيبي أنت برنامج شيء قد قلنا فضل سبسكرايب على channel كيسو كله لايك لدعم مقال كان سيو قار صاحب هذا. Okay. وياك صاحب بيال أرتو مقال كان ما تدينا يا وعن أوجه قف كسر الصومالي مركو إيش قاع كسي وحناقية. صوته قفل لي أنا جودن كيس متشعلي وحناقية لك حد بيلا إزدجية. حناقيننا شاعر شكل الله يوعدون لي إزدجية مقالك دو يسوق جار إزدجية مهمة ده مقالك إن لو ده جماعة إن حناقدين لكن واحد رضي وح مجرته أو قلبه مدويه أو أي جد واحد أوجه اللي أو كومنتي على إيسو قرية 5 years بنفرنا تنسانيا 5 years بهالكاس شغنا سومالي من نعبا كان واي وملب كواي ما حرب أنا عنده هو وحكتس واحد كلام مقالك ما هني نين جورناليستي أم يوتيوبريسه waxa uu yimid wadanka Tanzania kadibna dadku waxay weydiinayaan wadankee adduunka ugu nacabta adduunyada inta wadanka jirta wadankee ugu nacabta hadaba boqolkiiba 80 maxay ku jawaabeen muuqaalkaas ayaan ku hayaa laakiin kor inta aan ku soo gudbin anigu mar rabo inaan marnaba basadiir ama nin Soomaaliya yimid macna agtida wax uu qiimo u ku leeyahay iyo waxaan hadda u bumbuniya iyo waxaan u iraadacado lagu noqdo ma jirto dhalinyartii dadka kaga ku watar war anigu irsaaqadeena in kama hortaagni waxba indhaha igu soo gudinina aniga hadii show aad qabsaydaan daa meel kale tagaydaanba inaan idin fangaray aad baan u jeclaa lahaa waa ku xuma showyada ma tago aniga laakiin hadii aan show tagi lahaaba waan soo daawalaha ninkaas waxaan tusi lahaa waliba inaan idin qiimeeyo kaliya maahan laakiin isaga waxaan tusi lahaa in dadkiisu ay anaga qalad naga aaminsan yihiin laakiin anagu aan nahay dadka kibriya markay rabaan kor inta u qaadaan sabaxati inta u bixiyo dhulka web ku siiya ee iraado stupid ka jaf waana la dagay mar labaad in la dagana mar rab markuu wadi dage Allah dago mar labaad dagase ana is dagay ay dhigi jireen Soomaalidu Okay. marka muhiimadeedu waa taas ee waxaan leeyahay mar labaad ka afeefanaya anigu waxaad wax ku heleydaan ama qof aad wadataan kama soo horjeeda walaalayaalow ee waxaan diidanaa toosh ku bidhaaminaya waxay tahay war horaana loo gaaday yaan anaga sawir qaldan nagala gudbin oo sawir fiican nagala gudbin intaas haday xumaan tahana wiligiin bixita cadaabta la gala hadda iga xumaataan ama qoraalo dhaga hadal qora ama meel luqyo igala soo hadla aniga basadiir wax uu agteeda kamid hadda in kugu celina wax agteeda kalima waa nin jilaalkaas jooga laakiin ninkaas saa idin sheegay inta nin kaamirada ka arkay nin wanaagsan ma ahane yaa hal iska ilaaliyo hal isku ilaaliyo Okay. bas waxaan rabaa markaan muuqaalka la wadaago kadib ayaa waxaan ka dhihi lahaa aan ka dhahayaa Gani huipendi any country? Somalia. Why? Why Somalia? Why? The bad country. So every day you are so the bad country you don't love. Somalia. Sababu wanauana sana. Ni vita. Really? Yeah. Somalia Why? anytime Somalia busy Busy. yes Sawa. waxa ku leeyahay anytime Somalia busy anaga busy adana anaga busy iskii maxaa ka qosay balasay muuqaalka ana xataa xanaaqoya laakiin dajiye waxba xanaaqinay waxay ku dhamaysanaa xanaaqinay waa codsi Soomaaliya oo gacan fududiin waxba xanaaqinay dajiye waa dhamaysanayna Asante kaka. Okay. I don't like the country Somalia. Somalia? Yeah. Why? Because of the civil war and no peace. The country say if you have a country you hate that you don't like. You are right. Yeah, you are right, my brother. You are right. Do you have any country that you don't like a bad country? Outside Tanzania? Tanzania? Yeah, Tanzania super. Number one. Number one. Any country you don't like? I don't like Somalia. Because what? Why? And there is war. Somalia kuna vita sana. Somalia iko ni vita sana baro hasir
waraani dadkaan aan ka og haddii aan aniga wadan dhib kaliya aniga isoo geysta aan u nacayo ama wadan aan aaminsanayo Afrika ama meel kale hadii dhibaato aniga u geysta kaliya haddaan nacayb u qaadayo oo xagxaganayo aniga Zimbabwean 6 fucking month xabsi ku jiri oo aan xirnaa mana dhahayo waa necba bum sababtoo ah wali xiray xabsi baan galay marka xabsiga galana dabcan waqtiga iska qornaa laakiin inta xabsiga ku jira iyo qaabkii la qabtay iyo waxaas oo dhan wax xumaata oo maanta ka tabanay la ima geysan runta marka kaal xabsigaas waliba iska dhaaf iyaga inay dhaar waa necbahay askartooda dhaqanka iyo sida wanaagsan ay dadka xabsiga ku jira kula dhaqmayaan ayaan xitaa gabadh askariyeed ka jeclaaday xitaa waan dabcay xitaa waa u garaar ma qoray waxa ay inkastoo xariirta xishood dumarna leedahay misna ay xilxiisa xidigaha ku raran tahay xibnaheeda qaar baa xarfanaya doorka madaxa xijaabka xuralcayn ma oran karo waysan xijaabnayn ma ahane laakiin xuralcayn ma oran karo ma ahane inta kale waa xariir waa qurux badan tahay aan ku aniga marka aan ku leeyahay Tanzania Soomaalidu waa ay macnaha dad Soomaalida codad u haaya waay ma ahan inaan qalad isaga ataagay laakiin waxaan dhiga ku soo arkaa warnina dhul loo dhaayo mal ciyaalka qolalka ku xirxiran ee aan soconin ee qalbigu madow yahay ee qashin aruuris kasta u maleeya qof caadiya ayaan anigu aga digayaa in sawir qaldan ee caasimadana ka gudbiyaan laakiin ma ahan in aan ayagu waxay wataan iyo waxooda aan ka hor istaagay ma ahan taas laakiin waxa anigu indhiga ku soo arkay ayaa idin leeyahay war ka jooga war dadkaan ma taqaanaan war dadkaan anaga soo arag war dadkaan dad ma ahan war dadkaan ka jooga hadartiin ka joogid isku ilaaliyo iska ilaaliyo ilaahay baa idinku dhashay marxana bal qofka hadalkaasi waxaan u bedelay aniga ii soo qorayo comment xun ee aniga meelaha iga dhaga hadlayo luqyada wax igu soo qoray waxaan ku leeyahay nin suu bas diil suu aniga agtida wax uu ka yimid ducada qiimo kale yaadi nin wadkiisa quraay ka ah waaye halkan buu in qiimo anaga qiimo u yeelnaba aniga Soomaali soo miyaa dadkayga qiimo u yeel bas dirka sheegays anigu ma ogtahay qof aqli leh oo saliim oo wax u sheegi kara laakiin tu ku xagaajiyo waxba kama dhacsi karo waxba tu ku xagaajiyo kama dhacsi karo xaqiiqada jirtaan waxa ay tahay bas iyo dadkiisa nama jecla runta markii laga hadlo nama jecla laakiin inagu ma rabno inaan noqono dad cudades waxaan rabnaa inaan noqono dad ya sida hore in kugu sheegaba marna cadawga waxa la yiri ana macaan baa la siistaa okay marka waxa idin leeyahay isdejiya oo waxa waaye indhaha kala fura oo markaad wax sameeynaysan ama wax soo dhaweynaysaan ama wax wadeedaan ka hor taariikhda iyo baara shalab maahan duraad ba social media iska soo ordeedaan kadibna anagi wax idin sheegaynaa oo xartaan boor nagu qaridaan dhamaan xirteeda kala bar waxa aaminsan in yar maahan in aad macnaa u taageerayeen waxa aniga aan sheegay wax xaqiiqa ay ka dhaadhicisay ayaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin laytiin aan ka dareemayay sharaftii qiimaha iyo haydaana waa idin hayaa walaakin shaaca sheekooda mar labaad aad bad